Isdhiibitaankii Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxa ay dhaxal u noqotay Liibaan Axmed Xasan in maanta uu yahay hogaamiyaha soo socda ee Galmudug. Madaxweyne la sii og yahay doorashadiisa iyo sidoo kale qaabka uu u soo baxaya intaba ay noqotay wax la sii saadaalinayo. Inuu isaga haray Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor tartanka loogu jiro Durba, JSB waxay bilaabeen hambalyo iyo sidoo kale fantasiyo ay ugu dabaaldegayaan hogaamiyahooda cusub ee Galmudug kaasi oo noqon doona madaxweynaha soo xiga Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ee hogaamin doona maamulka Galmudug. munaasabado siyaado kala duwan uga dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho guddigu uu yeeshay markaasi fulinta waxaa looga dhawaaqay in markaasi Liibaan Axmed Xasan uu yahay hogaamiyaha rasmiga ah ee ururka wadajirka iyo cadaaladda ee JSB ku hogaamin doona Galmudug. laakiin arrimahaasi oo dhan waxa ay salka ku hayaan dadaalka iyo sidoo kale qorshaha Xasan Sheekh Maxamuud uu ugu jiro sidii mar kale uu u noqon lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ee 11aad ee soo aadan. waxaana haatan muuqata in mar kale laysku awood sheegtay oo Galmudug ay gacanta markaasi dowladda ay dib u gashay. si walba ha ahaato Liibaan Axmed Xasan oo aan lagu aqoonin inuu yahay nin siyaasadda markaasi saameyn xoogan ku leh laakiin dhaqaale iyo sidoo kale waxyaabo kale lagu tuhumayo waxa uu hadda doonayaa in qorshe ballaaran uu Galmudug kusoo galo. qorshayaashaas ugu waaweyn waxaa qayb ka ah dadaalada ugu waaweyn sidii wax looga qaban lahaa arrimaha dib u heshiisiinta dagaalka Al-shabaab iyo sidoo kale dhismaha dekedda aan weli dhammaan ee Hobyo. waxyaabaha ugu waaweyn ee kale ee Liibaan horyaala waa sidii markaasi bulshada Galmudug la isugu hayn lahaa. laakiin waxay u muuqataa wadajirka iyo cadaaladda urur siyaasadeedkaasi maanta inuu gaaray mid ka mid a guulihii ugu waaweynaa Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor inuu markaasi iska tanaasulay sidoo kalena uu shaaciyey 26 Juun habeenkii ahayd inuu gebi ahaanba isaga tanaasulay doorashada iyo sidoo kale hanaanka Galmudug waxay ahayd mid ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee sida weyn loo saadaalinayay. doorashada dhici doonta waxay noqon doontaa doorasho qof kaliya oo malxiisa ula tartami doona Liibaan Axmed Xasan madaxweynaha la leeyahay waa madaxweynaha la sii og yahay ee isaga oo la dhaarin madaxweynaha markaasi Galmudug noqon kara. si walba ha ahaatee waxaa muuqata hadal hayska iyo sidoo kale qorshaha inta badan la yiraahdo waa madaxweynaha dhaartu u dhiman tahay. qodobadaasi waxay yihiin kuwa ugu waaweyn ee hadda salka sida weyn la isugu hayo. laakiin Galmudug hadda waxay u muuqataa marxalad xasaasi ah sidoo kale sheekooyin ballaaran inay haatan si weyn u gelayso. si walba ha ahaato dadaalada iyo sidoo kale qorshayaasha ballaaran ee haatan Galmudug ka taagan waa kuwo si weyn la isugu hayo dhinacyaduna ay si weyn ay isugu haystaan. waxaa muuqanaya qorshayaal kala duwan kuwaasi oo wadajirka iyo cadaaladda JSB hadda ay si weyn kaga qabanayaan. xasan sheekh maxamuud mahad maxamed salaad iyo sidoo kale xamse cabdi barre dhammaantood waxay ahaayeen shaxda ama sidoo kale waxyaabaha sida weyn loogu dhabar jabiyey ninka lagu magacaabo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. kulamo siyaabo kala duwan wajiyo kala duwan u yeeshay oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxaa lagu qanciyey inuu isaga soo wareego Galmudug sidoo kalena saameyn uu ku yeesho doorashooyinka markaasi soo aadan ee federaalka. waxa uu noqon doonaa mas'uul sare waxa uu noqon doonaa mid si weyn markaasi u bedeli doona booska hadda uu ku jiro Abshir Maxamed Axmed Abshir Buqaari waxaana dadaalada iyo sidoo kale qorshayaasha ay yihiin si weyn kuwa la isugu hayo. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor markan saaxiib gaar ayuu u noqon doonaa Xasan Sheekh Maxamuud waxaana si weyn uga wada shaqayn doonaan arrimaha federaalka iyo sidoo kale qorshayaasha soo aadan. sidii loo maleynayay ma noqon oo waxa uu noqday saaxiib markaasi si weyn hadaadul ugu noqda sidoo kalena isu dhiiba markaasi wadajirka iyo cadaaladda. ma jirin dagaal uu kala hor yimid iyo sidoo kale qorshayaal la mid ah kuwii lafta gareen laakiin waxaa muuqata in Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu iska tanaasulay sidoo kalena uu yiri weli waxaan qayb ka ahay xisbiga iyo wadajirka iyo cadaaladda wixii aad soo goysaan anigu waxaan ahay mid qayb ka noqonaya. dadaalada iyo sidoo kale qorshayaashii ballaarnaa ayaa dhammaantood kusoo gabagaboobay in Liibaan Axmed Xasan maanta loo dabaaldegay inuu yahay hogaamiyaha markaasi soo aadan ee Galmudug Soomaaliya hogaamin doona. laakiin waxaan la ogeyn qorshaha iyo sidoo kale qabanqaabada ballaaran ee sii socon doonta. si walba ha ahaatee xaaladaha haatan ka taagan Galmudug waxay noqon doonaan kuwo si aad isugu milaqsan kuwo si aad markaasi dhinacyadu ay isku hayn doonaan laakiin haddana sidaasi ay tahay waxaa muuqata guusha ugu weyn ee dowladdu ay ka gaartay inay tahay inay maamulkaasi gacanta ku dhigtay haddana uu noqon doono maamul ay iyadu maamulayso. waxaana dadaalada iyo sidoo kale waxyaabaha ugu waaweyn ee haatan u muuqdaan kuwo la mid ah kuwii hore uu u qaaday Farmaajo sanadkii 2018. doorashooyin siyaabo kala duwan uga dhacay 2018 2020 koonfur galbeed iyo sidoo kale Galmudug maxamed cabdulaahi Farmaajo dad uu asagu wata ayuu halkaasi geeyay waxaana dhammaantood ay noqdeen kuwo guuleystay. haatanna sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu wadaa dad markaasi isagu uu doonayo marka laga reebo ninka lagu magacaabo Cali Gudlaawe Xuseen. dhammaan qorshayaasha iyo sidoo kale waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda Xasan damacsan yahay waa kuwa ugu ballaaran ee hadda uu ku joogteynayo doorashooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee sida weyn u taagan. si walba ha ahaatee Galmudug xaaladeedu waxay ku soo gabagabowday
liibaan axmed xasan oo ah madaxweynuhu dhaartu u dhiman tahay sidoo kalena dadaalada iyo sidoo kale waxyaabaha kale waxaa dhanka kale ay ku gabangaboobeen axmed cabdi kaariye qoorqoor oo isaga tanaasulay doorashooyinkii iyo sidoo kale hanaankii uu ka damacsanaa galmudug wax walba waxa ay noqdeen kuwo kusoo gabagaboobay ciddii lacag leh ayaa talinaysa si walba ha haatee xasan sheekh maxamuud dhaqaalo awood iyo sidoo kale wax walba uu adeegsado maamul goboleedyada hadda waxay yihiin dhammaantood kuwo asaga ku dabafayshan sidaas ayaana haatan u muuqata qorshaha ballaaran iyo sidoo kale marxaladaha xasaasiga ah ee haatan jira